koonfur galbeed waxay u dhaqaaqday doorasho qof iyo cod ah waa taas aad arkaysaan in la dhaarinayo golihii deegaanka labada bishana waxay u dararsanayaan doorashadii golaha baarlamaankooda 10ka bishana waxay dooran doonaan madaxweyne dowlad goboleedka koonfur galbeed runtii waxaan leenahay waa guul lagu farxo lana soo dhaweey inuu dalka maanta waxa waaye madaxweyne maamul goboleed runtii waxa waa si xor iyo xalaal ku dhacaysa inay ka dhacayso magaalada Baydhabo madaxweynahoodina lagu soo doonanayo laakiin waxa la yaab leh in lafta garan oo runtii waxa waa magaalada Baydhabo isagoo ciidamada Ethiopiana iyo ciidamada koonfur galbeed hanan waay ay si joogo waa saacad wax ka yar kaga baxay ayaa maanta wali damac uu kaga jira inuu waxa waa magaaladaas inuu dib u qabsado uu soo jabhaday marka bani aadanka waxa waa mararka qaarkood marka lagu leeyahay dadka waa ay ku waashaan xukunka waxaan oo kala kamid ah xukunka qof warku ku waaranayo noocan oo kala kamid ah waxaabay ku dhacay in la oran jiray Nicolas Jesus ee dalka Romania oo waxay ku dhacay Samuel Doe ee waxa waa xiniyahooda waxa waa lagu jira dariiq cagahoodana meedkoodana dhulka lagu jiiday marka qofku markuu xukun ku waasho waa noocaas oo kale nin maanta waxa waa magaalada ka baxay ee qaxooti ku ah dal kale ee Nairobi meelaha jooga waliba waxa waa dalkii baan dib u qabsanaya oo aan Baydhabo ku soo laabanaya isagoo arkay in dadkii deegaanka ay doorasho u dareersadeen asagoo arkay in doorasho qof iyo cod waxa waa maanta ay ka dhacayso bisha labadeeda oo golaha baarlamaankooda oo madaxweynaha soo dooran lahaa bisha 10keeda inay u dareersadeen magaaladii ay xasalan tahay ciidamada dawladda ee runtii waxa waa maanta diyaaradaha iyo daroonka wata ayuu rabaa inuu waxa waa ummad masaakiina ku laayo dad dhalinyaro ah ee runtii waxa waa meel u baxsadaan meel u dhaqaaqaan la ee loyal u ah halku waxa waa talo wanaagsan uu siin lahaa oo dheeraha bal xaalad kale iyo siyaasadaha kale si kale wax ku maareynayay bal waxa waa magaaladiina kala gal si wanaagsan waxa ummadda ula dhax shaqaysta ayuu wuxuu leeyahay dagaalada qoryo qaata buuqa asigana Nairobi ku soo buuqaya waxaas wax qiimo leh mana laakiin waxa waa waxyaabaha la yaab kale waxay tahay in magaaladii oo doorasho qof iyo cod u dareersanaysa ee xasiloon ee koonfur galbeed waa 3 gobol Bakool degan Shabeellada Hoose degan magaalada Baydhabo goboladeedii oo dhan oo degan oo 5 degmo ay ka dhaceen doorasho maanta waxa waa dawladda federaalka intaas soo ciidan ay runtii waxa waa gacanta ku hayso ilaalinayaan ninka ku fikiraya inuu waxa waa ummad dhalinyaro ah ku laayo wax la taliyo waa sayla tahay